ما شاء الله. لكن بريسكي فرفر بلير ساقه بريسكيني عادي هي واكنا وفرفر كده بكينا واكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوادا من عبيوتي لايف ستايل ولا شيء ما صار لها بطي وحيد الله بهاي بريسكي عم كرنايا هذا وحيد كده يعني بهالشي محلها بصل iyo كمثر علين iyo toon iyo xawaaj hilib dadkan bariis ku daraya bariis baan karinayaa maasha Allah caruurta aan karinayaa bariis marka ma rabo inaan basbaas ku daro inaan ku daro ma rabo inaan xawaajiyo badan ku daro xawaajiyada cudur laga qaadaa marka hadii aad hilibka ku darayso bariiska maraq ood maraq ku darayso uma baahnina xawaajiyo badan ku darto كمثر علين iyo toon aan soo shiiday ayaan basasha ku daray waan isla soo shiilay ma sha Allah maraq hilib ari abaan ku dari doonaa bariiska marka saas la socda marka halka waxaan ku haystaa bariis baan ku haystaa halkan ana waxaan jeclahay bariiska inaan shiilo ma jecli inaan biyaha ku dhex shubo وأكنا أسكو لاقي إن شاء الله حير بعد بولا يا سك ولا حير halka waxaa ku jira walaalayaal xawaajilib waa taqaanaa waa kana intaan aan hadda reebtay hilibkaan rabaa inaan ku shiisho aan ku dul darsado marka bariiskayga anu maanta waxaan ku karinayaa maraq digaag 2 xabo ah iyo xawaaj hilibka cuntada wuu carfiyaa ma sha Allah buu ka dhigaa anaba caadi ma ahan iyo hilib maraq ari hilibka ariga maraqan ka sameeyay ما شاء الله marka walaal la daawo halkan way tahay waxaan soo qabo yadda isoo dhaq ana waxaan jeclahay bariiska ma aragtay inaan shiilo aan jeclahay saliida ka yar laakiin maraq baan ku karinayaa marka hilibkan uu waxaan korsado uu isla shiilmo توجد وحقا يرى كله الرقيان فلاش الماء توقف فرحة خلاص وسلاش الماء ولا ليا عيين ما عرفت أنه حيننا كان مرقنا ربعنا كوريو حلب كنا قولي دي سامو الشيلة يا سدنا الشيلة وإن تصدقنا إن شاء الله marka waa kana bariiskeena hadda halkan inoogu soo shiilmaya inta badan gabdhuhu way qaarba siba bariiska u kariyaan hadda bariiskan anu caruurteyda bas u karinayaa bariis aan maaragtay aan special oo ama aan dad marti u karinayo ama aan nin u karinayo ma ahan waa bariis caruurta u karinaya haddana caruurtaada haysan mar walba wixii adigu isla jeceshay ama qof kale la jeceshay ilmahaaga si dhibaato ma lahan ilmahaaga waa inaad prioritize garayso ilmahaaga first ka dhig nin baa cuntada laga wadanka waxaan joognay ilmahana waxa la siinayo cunto yar oo iska simple ninkan cunto fiican baa loo kariyo waxaas ma fiicna anagu taas ma ogoli ilmahaaga wax fiican si ilmahaaga ah ninkan aad cuntada u qarqarinayso inay taanba kala tagi kartaa ya laakiin ilmaha idan kala tagaynin iyo qofka idan mood mooyaane idan meel kala aadayn waa ilmahaaga cunto nafaqo la siiso ilmahaaga dadka u gal ilmahaaga maxaa la dhihi jiray ilmo ku jecel ka dhig ilmaha markay yar yihiin ayaa la isjeclaysiiyaa ilmuhu markuu weynaado si kasta ood asxaan ugu samayso inuu ku jeclaanin baa laga yaabaa laakiin
ilmahaaga goorta aad rabto inaad isjeclaysiiso ama ilmahaaga inay ku jeclaadaan haddaad rabto jacayl u muuji intay yaryar yihiin, si fiican u kori intay yaryar yihiin, maskaxda ha ka bahdili intay yaryar yihiin. maskaxdu marka ay yar tahay ayay maxaa la dhihi jiray wax qabanaysaa, hadday weynaato waxa ma qabato. wixii hore eed kusoo shubtay unbay maaragtay kasoo baxaayo, ama ha xumaado ama ha fiicnaado. marka ilmahaaga maskaxdooda ilaali. gabar Soomaaliyeed ilmahaaga si xun ha ula hadlin, ilmahaaga maxaa la dhihi jiray ha caayi, ilmahaaga cunto fiican sii, ilmahaaga hadduu cayilsan yahay cayilka ku caay, hadduu damin yahay daminimadiisa ku caay, hadduu xun yahay hadduu fiican yahay ilaaha ku baday. haween waxaan arkay ilmahooda dad la xamanayo. abidka iyo allahay hooyo ilmaheeda dad la xamanayso wax ka foolxun waa la waayay. hooyo ilmaheeda ceebteeda u sheegaysa dad kale, hooyo ma aha taas. hooyo la-aan baa dhaanta. anuu indhahaa saaray hooyo ilmaheeda dad la xamanaysa oo u sheegaysa ceebaheeda. hooyada fariidii waata ilmaheeda asturata, waata ilmaheeda urursata. ilmaha midda kale haddii aad maasha allah ilmo badan leedahay, ilmo badan haddaad leedahay ama aad maaragtay dhowr ilmo kuu joogaan, ilmaha ha isla xamanin. ilmaha aad maaragtay kuu dhagan nugul de ilmaha qaarba maxaa la dhihi jiray qaarba waa si ma ogtahay. ilmaha kuu dhagan nugul hala xamanin ilmaha kale. hadhow buu ku bahdilayaa, wuu ku dhaga hadlayaa, ilmaha kale codad buu kuu qaadayaa. marka ma fiicna ilmahaaga inaad ilmaha kale ula xamato. ilmaha jeceshahaa jiro ilmahaaga dhexdooda, ilmaha la kala jecel yahay. dad baa kala jecel, anu mid kala jecel ilmahayga, laakiin haween kala jecel waan arkay. laakiin ilmaha adigu favorite-kaaga oo jeceshahay ilmahaaga kale ha u bahdilin. maanta dhan hebel waa sidan, hebel waa sidan, hebel waa sidan markaad isaga ku dhahdo, isagiina ilmahii walaalkii ahaa ama walaashii way caayaysaa ama wuu caayayaa. marka always waxaad samaysaa marka ilmaha la sheekaysanayso ood ilmaha jeceshahay ilmaha qaarkood jecel yihiin. subxaan allah, ilmaha lama kala jeclaado. ilmaha haweenka qaar jecel yihiin. ilmaha aad jeceshahay ilmaha kaleeto ha la xamanin, waayo ilmahaaga kaleeto uqdad buu kuu qaadayaa. inaada jeclayn ood qofka kale jeceshahay buu maaragtay uu kasoo qaadayaa. hadhowtana mid aad u hoos iman iyo mid ku caawin allahu yaclam. marka waxaa kuu fiican ilmahaaga inaad aada kala qaadqaadin, ood ilmahaaga isku weji isku jacayl inaad tusto baa wanaagsan. always haweenka Soomaaliyeed ilmahay jecel yihiin waa ka dhaqaaqaan, laakiin ilmaha ay necab yihiin bay hoos yimaadaan. taasna waa wax la soo ogaaday. laakiin subxaan allah, allaha raxmaana ka magan galay inaa ilmahayga kala jeclaado oo magacyo ugu kala yeelyeelo. wallaahi ilmahaaga haddii aad bahdisho ilmahaas wuu ku daayay. wallaahi magaca ilaahay baan ku dhaartay, wuu ku daayay. ilmahaas haddii aad bahdisho ilmahaaga oo intuu yaryahay aadad maskaxda u dhisin, oo intuu yaryahay ilmahaaga aadad maskaxdiisa korinin, oda kalgacal iyo muxubo ilmahaaga intuu yaryahay tusin, isma haysaan. Soomaalidu laakiin qarjajajajajajajajac bay wax ku korsadaan iyo dagaal. ilmihiiba 14 markuu gaaro kaa dhaqaaqay ama qurbaha inta la joogo dee wadankiina sidoo kale wadankii oo kalena uu tagi jiray ilmaha markay weynaadaan haddii waalidka isfahmi waayaan. marka ilmahaaga intuu kaa dhaqaaqi lahaa ilmahaaga macaan. so hadda maraqaan ku darayaa masha allah. waxaan rabaa waxoogaa furfurna inaan ka dhigo, furfur inaan ka dhigaan rabaa oon aday ka dhigo, maadaama oo ilmaha 2 sano 1 sano uu cunayo. katalka isa qabqaan katal slowly wa biyo kulul ya. bismillah dhiso, bismillah hooy ما تعرف ماشي. No, only this one.
asxaabi wax yar oo biyo kulul aan ku daray maadaama maraqu yaraa marka maasha allah wey maasha allah bariiskaasi dee markuu bislaado ujeeda walaa aniga ilmahan gaas qaar baa gaas qaba marka ma jeclo xawaajiga badan saliida badan ma fiicna hadhowta haddii uu lacala daraay noqdo badharka maaragtay badharka caadiga ah ayaan korka kaga daraya markuu bislaado wey badharkaasi waa idin tusi doonaa uu ku carfinayaa bariiska maasha allah buu ka dhigayaa marka waan daboolaynaa maasha allah dee waan isku soo laabanaynaa bariiskaasi marku uu maaragtay uu inoo bislaado halkana waxaan ku haystaa aan la yar sheergareeye halkana waxaan ku haystaa sikadaan iska tirtira meesha haddii aada jikada kolkaad wax karinaysa aada kilin garayn hadhowta way kaa iska goobaysa marka hilibka waa kana intuu iigu jiraa kanaan korka kaga daraya xawaaj hilibka ujeedaan walaalayaal xawaaj hilibkaasaan korka kaga daray xabad maraq digaagana korkaan kaga dari doonaa insha allah toontaydii waxaygii halkanaan ku daray maasha allah cuntadan dad baan haysanin dadka aan haysanin ilaahay ha siiyo annagana allah noo barakeeyo marka wax yar maxaa la dhihi jiray wax yar baan yara daynaya isku hurinaya hilibkan sida aan usoo shiilo dee waxba lasoo sheergarayn maayo laakiin markaan hilibka soo dul saaro bariiska soo dul saaro aan soo diyaariyo aan idin tusaya insha allah muhiimadeydu waxay ahayd inaan bariiska idinla sheergareeyo insha allah iskaabulaa buuxda iskaabuladu iyagana u baahan yihiin wiilasha iskaabulada ah ama gabdho yaryara waxaa jira aqoontada sida loo kariyo aqoonin marka inaad iska soo geliso wixii simple ahayd karinaysaba way fiican tahay wixii fiican ba soo geli youtube-ka way fiican tahay marka please walaalahay aan jeclahay meel walba oo joogtaan haddii aad maaragtay videogaygan kusoo gaadhay please like-ta wax badan iga caawinaysaa like-ta ii saar subscribe ida haddii aad igu cusub tahay gambaleelka furo commentiga quruxda badan ee maasha allah ana waa xaqaaga waa isku soo laabanayna insha allah marka uu bariisku inoo bislaado isku soo laabanayna walaalayaal waa isku soo laabanay waa kana hilibkii waxaa yar xawaaji iyo kamasar caleen yar oo bariiska ka reebtay ayaan maaragtay ku yara shiilay markii hore aan hilibka soo karkariyay oo aan abro loogu talagalay bariiskii oo furfur ah ayaan korka kaga daray wax yar oo xuleeyahay qoyaan ah waxaan samaynayaa almuuniya meel dhahaa kanaan korka kaga tagaayaa maasha allah aniga mar walba ciyaalkayga first I don't care wax kale ya ciyaalkayga baa my world manaygaan number one bay yihiin isoo qaba digsi halkan maaragta haddaan doono bariiska nooca ugu dambeeya u karinayaa marka waqti inaad gelisa waaye ilmahaaga cuntadooda iyaga everything ilmahaaga ah geli bariiskaas iyo hilibkaas dabkaan u gaabinayaa maasha allah aad furfur buu noqonaya macaan badan oo kaale iska arago ilmaha saa ugu siisiibanaya hilibka ariga faad buu leeyahay ma fiicna laakiin sometimes inaad ilmaha siiso intaad xoog u karayso way fiican tahay laakiin fiishka iyo chickenkana waa idin soo sheergarin doonaa maalinka aan u karinaayo baastadoo kale noocyo badan ayadana ugu kariya baastay jecel yihiin baasta macaroonida ay jecel yihiin marka maasha allah wiigan bariiskaasaan karsanay de markii maaragtay aan usoo diyaariyana insha allah kilib yar baa isagana kasoo duubi doonaa marka walaalayaal waa idinkaasa oo isku soo laabanayna insha allah markuu soo bislaado oreer waaba idin kustayba
آمين إن شاء الله.